waxay ahayd habeen sabtiya. Haruko waxay joogtay maktabada ayadoo markaas ka shaqeynaysay project groupkooda dhan loogu talagalay si maalinta xigta u dhiibto. Teamkeedii dhan markaas way ka tageen Haruko si ay kaligeed projectigu dhameystirto, laakiin Haruko markaas wax dhibaato ah kuma qabin. wax saaxiibo ah maysa samaysan Haruko sidii ugu soo wareegtay magaalada cusub sida ay jaamacad uga dhigato, sidaas darteed in ay isbuuca dhamaadkiisa wax barato ayay jecleed. waxay fiirisay saacada waxayna aragtay inuu u dhowdahay habeenbarkii, sidaas darteed buugteeda ayay xidhay waxayna ku celisay meelahoodii. maktabada waa la xiri rabay markaas. waxay eegtay gabadhii maktabada fadhiday waxayna aragtay inay si xun u eegayso markaas Haruko way u dhoola cadaysay waxayna garatay in islaanta meesha fadhida ay rabto inay meesha ka baxdo si ay maktabada markaas u xirto. Haruko waxay ku soo laabatay miiskeedii waxayna qaadatay buugteedii iyo boorsadeedii. kadib markaas waxay maqashay sharqanta socod gadaasheeda ah. Dhinacyadeeda ayay eegtay waxayna aragtay qaybta ay buugta historyga yaalaan in uu taagaynin waxayna u malaysay inuu markaas iyada daawanayo. Indhaha ay bilig ka siisay isagana isla markiiba u baaba'ay. Haruko alaabteeda ayay guratay waxayna bilowday inay socoto. Geesaheeda ayay hadba eegaysay waxayna hubinaysay inuu qof kale joogo, laakiin waxay aragtay kaligeed iyo qofka meesha maktabada fadhiyo inuu joogo. Banaanka ayay u soo baxday kaasoo ahaa mid aad u qabow badan, markaasna dhaxan ayay dareentay. waxay ahayd habeen aad u degan. Harukona markaas way ogeed in aysan ahayn inay kaligeed xilligaas socoto, laakiin waxay nafsadeeda ka dhaadhicinaysay in ay geesinimo iska muujiso. waxay nafsadeeda u sheegtay in aysan hadda ka dibisiyaal ahayn oo aysan u baahnayn hooyadeed iyo aabaheed si ay mugdiga uga badbaadiyaan. markaa kadib neef dheer ayay qaadatay waxayna tiri, run ahaantii waalidkayga waan u xiisay. waxay maqashay raadka kabaha wayna soo fiirisay, markaasna waxay aragtay qof mugdiya oo ka soo socda gadaasheeda. cabsi ayaa jirkeeda dhan gashay, markaasna waxay tiri, ma qof ayaa idaba socda xilligan. waxay bilowday inay dheereyso waxayna ku faraxsaneed markaas in dhismihii ay degneed uu meesha ka dhawaa. waxayna dareentay ammaan aad u badan markay iftiinkiisa aragtay. waxba hadda iguma dhacayaan. ninkii waardiyaha wuu u dhoola cadeeyey, markaa kadibna wuxuu ku laabtay fideogii uu daawanayay. Haruko wiishka ayay soo gashay waxayna taabatay nambarada waxayna dooratay biyaanada 14aad. markii albaabada wiishka xirman rabeen qof ayaa gacan weyn markaas albaabada kala dhex gashay. Haruko neefta ay isku celisay cabsi darteed waxayna aragtay inuu meesha taagan yahay nin yar oo aad u qurux badan kaasoo lahaa indho madow iyo tim madow. wuxuu bilaabay inuu si qurux badan u eego kadibna uu u dhoola cadeeyo. Haruko dhabanadeeda ayaa casaaday markii uu wiilka si qurux badan ayada u salaamay. waxaad ku nooshaa biyaanada 14aad ayuu weydiiyey asagoo markaas fiirinaya meesha u socoto. Haruko markaas afkeeda waxba way ka soo bixi waayeen oo u jawaabi weysay. markaa kadib madaxa ayay ruuxday waxayna rajaysay inay si xishoon. wuxuu dhahay, aniga waxaan ku noolaa biyaanada 13aad. kadibna batankii ayuu taabtay. markaa kadib ayuu wuxuu soo eegay Haruko asagoo si la yaab loo eegay wuxuuna dhahay, waxaan ka helay dharkaaga. Haruko dhoola cadeyn kaliya ayay awooday, mana aysan la hadli karin ninka ay mar horeba bilowday inay ku riyato asaga iyo iyada oo markaas is-shukaansanayo. haddii awood u lahaan lahayd in ay tusto ninka inay ka heshay, laakiin awooddaasoo kale ma laha sida gabdhaha jaamacadeeda dhigta oo kale. markii la gaaray biyaanada 13aad ninkii wuxuu bilaabay in uu ka socdo wiishka. markaa kadibna hal mar ayuu Haruko gadaal u soo eegay wuxuuna markaas ku dhahay, waan ku arki doonaa bye bye. markaa kadib Haruko ayaa si miskiinimo ku tiri, haye waan kugu arki doonaa agagaarka. kadibna wuxuu la soo baxay mindi aad u weyn wuxuuna bilaabay inuu dhoola cadeeyo wuxuuna dhahay kor. kadibna wuxuu bilaabay in uu ku ordo jaranjaradii kor u socotay markii uu albaabka wiishka xirmanayay. Haruko waxay dareentay jirkeedii oo dhan qaboway, markaas waxay la soo baxday taleefankeedii asagoo wiishkeeda markaas u wado dhinacii degneed. laakiin waxa muusan tarayn intii isan wicin booliiska ka hor waxaaba markaas isfuray albaabka wiishka. Haruko waxay bilowday inay qayliso markay aragtay ninkii oo horteeda taagan, laakiin meel ay u carartay ma lahayn. isla markiina mindidii wuxuu ka gashay wadnaha. fanaanadeedii cadaydna markaas kalarkeedii cadaa guduud ayuu gabigeeda isku bedelay. subaxdii xigtay dariskii ayaa waxay heleen Haruko taasoo ahayd mid meyda oo dhex taala wiishka. isla markiiba wuxuu bilaabay managerka hoteelka inuu ka fakaro ammaanka hoteelka, sidaas darteed wuxuu meesha ku xiray CC camera meel walbaba wuxuuna ku daray number kaasoo ah emergency. dhacdada kadib waxaa ka soo wareegatay 6 bilood. dilaagii wiishkana lama qaban weli. markaas kadib dilaagii wuxuu bilaabay inuu nafsadiisa faaniyo maadaama uu ku baxsaday dilkaas. wuxuuna isweydiiyey in uu mar labaad samayn karo uuna ku samayn karo isla dabaqii. wuxuu ku soo aadamay habeen kale isna sabtiya wuxuuna arkay haweeney kaligeed sugaysay markaas wiishka inay gasho.
wuxuu istaagay gadaasheeda asagoo hubinayay in waardiyaha markaas weli moobilkiisa ku jeedo. Markaa kadibna wuxuu xirtay koofiyadiisa markii uu arkay CC kaamirada meesha ku xiran. ugu dambeyn wiishka ayaa yimid, haweeneydiina way dhex gashay wiishkii. Markaas uu fiirsanayay waxay sameynayso, wuxuuna arkay in ay dooratay biyaanada 14aad. markaas kadib wuxuu ku dhahay, biyaanada 14aad ayaa degan tahay, aniga tan 13aad ayaan deganahay. haweeneyda uma ay jawaabin, madaxeeda hoos ayuu eegayay, waxayna ay markaas qabtay maro cad, tinteedana waxa uu qarinayay qayb badan oo wajigeeda ka mid ah, waxayna ahayd mid cagacad. markaas wuu la yaabay haweeneyda, laakiin kama uu cabsan sababtoo jeebkiisa waxa ku jirtay mindi, taasoo ahayd mid loo soo afeeyay in markaas qof lagu dilo. biyaanadii 13aad ayaa la soo gaaray, wuxuuna bilaabay inuu wiishka ka soo baxo. wuu istaagay si uu u dhaho, waan ku arki doonaa. wuu naxay sababtaa markaas haweeneyda wiishka kuma ay dhex jirin. markaas wuxuu dhahay, macquul ma aha in ay niyadaada ahayd. sikadiisa ayaa waxaa isxiray albaabkii wiishka, markaasna nalalkii korkiisaha waxay bilaabeen inay bilbiladayaan. xoogaa kadibna wuxuu maqlay, kor ayaan kuga arki doonaa. ninkii aad iyo aad ayuu u cabsaday, wuxuuna dareemay tinta dhabarkiisa ku taalay inay istaagtay. markaa kadib kor ayuu eegay, indhihiisana waxay bilaabeen si saaid inay u kala furmaan. haweeneydii waxay ku guurguuranaysay saqafka, tinteedana waxay ahayd mid aad u dheeraanaysa, waxayna u dhaqdhaqaaqaysay sida maskoo kale. indhaheeda waxay ahaayeen kuwo aad u guduudan sida dhiigoo kale, afkeedana wuxuu lahaa ilka aad u afaysan. wuxuu arkay in maryaheedoo dhan ay ku daadsan yihiin dhiig, islamarkiina waxa uu gartay qoftan cidda ay tahay. haruko gacanteeda ayay kala jiiday, waxayna islamarkiiba kasoo qabatay dhuunta, waxayna bilaabday inay usoo jiido afkeeda, kaasoo ahaa mid aad u weyn.